waa buug sare ku qaadi kara hoosna ku dhigi kara waa buug ilbaabi badan ku furi kara sidoo kale ka xiri kara ibni aadanka ka soo bilaabo waqtiga alla abuuray ilaa waqti dhowba arlada korkiisa si xor ah ayay ugu socon jireen laakiin baasaboorka markuu soo baxay kadib socodkii ibni aadanka waxa lagu lamaanay buugan yar marka nolosha ibni aadanka baasaboorka qaabkee balse goorma ayaa ku soo biiray afar boqol sano ka hor miilaadiga intaanu bilan waa waqtigii horeysay ibni aadanku isticmaalay warqad taasoo ujeedadeedu ay ahayd safar madaxweynihii waaga ka talin jiray dowladda Farisiyiinta magaciisu ahaa Arhaskii koobaad ayaa mid ka mid ah dhambaalayaashiisa warqad u dhiibay si uu xuduud u dhaxeeyo dowladda Farisiyiinta iyo dowladda Yuhuudda si amni leh uga gudbo sidoo kale qarniyada dhexe dowladda Carabta warqad ayay siin jireen qofkii sakada bixiya waqtigu waa qarniyada dhexe gaar ahaan 1414 goobtuna waa Yurub ومركي جوريسي إيري بحين الباسبور دون ذكر كده لاجي استعماله مدحويني واجا كتلين شري دولة إنجليزكا إما جايزو هنري شنات أيها حصوص على أمر كاسوها إن تدك حول القطاع يو تدك جانبك ورقات لسيو ورقات عاصم معني ده تهيد جناشيو قرن جيس على تمنات ومركي الدولة ده بدنا يدعن جليان باسبوركا سيدا جبان كون سيدا بقولي ليه حتتكي دولة عثمانية أنت روشكا كون سجى بقول يو تشاينا كون سيدا بقولي يو سجاشن يستدي dagaalkii koobaad ee dunida kadib kalsoonidii ka dhaxaysay dawladda badan ayaa meesha ka baxday taasoo keentay in safarka ilgaar lagu eego 1914 dagaalkii koobaad ee dunida ka hor intaanu bilaabin waa markii ugu horeysay dawladda Ingiriiska ay soo saarto baasaboor casriyaysan kaasoo ahaa warqad waqti dheerna kama soo wareegin warqadiina isku bedesho buug 1970 markii ugu horeysay baasaboorka buug loo bedelay iyagoo wadamada ku jira qaramada midoobay go'aan ay ku gaadheen waqtiga kadib ibni aadanku wuxuu yeeshay baasaboor taasoo xagga muuqa laga wada sameyn yahay laakiin haddaad moodo in baasaboor walba uu sameyn yahay amba uu sameyn yahay halkaas waad ku khaldan tahay shariga caalamku wuxuu dhigaa in ibni aadanka wadanka gudihiisa iyo wadanka dibadiisa si xor ah uu u safri karo laakiin fikradda ka dambeysa baasaboorka way ka duwan tahay qaramada midoobay shaqo ku malay baasaboorka soo saaristiisa oo imka dowlad walba iyada soo saarta baasaboorkeeda oo muwaadiniinteeda iyada u soo saarta dowlad walba xaq waxay u leedahay baasaboorka in qofkii ay doonto ay siiso sidoo kale qofkii doonto waxa la dhaho jinsiyadda ama baasaboorka ay kala noqoto waxa suurtagal ah inaad maqashay baasaboorada dunida ugu awoodda badan sidoo kale kuwa ugu liita dowladaha Finland, Luxembourg, Ireland waa dowladaha ugu horeeya xagga baasaboorka caalamaha marka la fiiriyo waxay ku gali karaan 156 dowladood fiisa la'aan halka isla liiska markaad hoos u degtid aad ka heli doonto dowlado muslimiina Soomaaliya, Pakistan, Syria, Iraq, Afghanistan واشنطة دولدودي ugu hooseeya xagga baasaboor ahaan ama aynu si kale u dhigno washanta dowladoodii ugu baasaboor liita haddii aad wadamada islaamka midkood baasaboorkiisa aad haysatid waxaad ogtahay fiisa qaadashada laga qaato safaaradaha ay tahay sidii dagaal oo kale dowladaha Carbeed baasaboorka waxay isticmaalaan si ay ummadooda ugu karbaashaan cidii siyaasadooda waafaqsan way siiyaan balse cidii ka soo horjeeda ama mucaarid ku noqota baasaboorku way kala noqdaan imka haddaynu tagno Syria waxaynu ka helaynaa caalamahan baasaboorka ugu qaalisan dunida $800 ayaa lagu sameeyaa sidoo kale wuxuu ka mid yahay baasaboorada dunida caalamahan ugu liita halka Masarna cidii dowladda mucaarid ku ah loo diido baasaboorka inuu jadiisado waa haddii dibadda ku sugan yahay haddii gudaha uu ku sugan yahay laga mamnuuco inuu safar u galo waa haddii aan jalka loo taxaabin baasaboorku mamnuucistiisu halkay ka mid tahay nooc ka mid ah noocyada dowladda ay ku yaqaabaan ummadooga siintiisuna waa nooc ka mid ah hadiyeynta ay dowladda ku hadiyayaan dadka ajaanibka imka dir madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku faanaa inuu baasaboorka u siiyo dadka ajaanibka lacag leeda ah sidoo kale MBS wuxuu ku faanaa inuu siiyo baasaboorka aaladan ama qalabka magaceedu ahayd Sofia 2017 baasaboor la'aan noloshu suurtagal noqon mayso waa imka dir cidii baasaboorkan haysan waa wuxuu la dhigmaa nin jeel ku jira baasaboorku waa shayga loogu koobiyeynta badan yahay waa imka dir dowladdu waxay ku dadaalaan in forgeryga ama koobiyeynta laga ilaaliyo si uu warqad ugu tago 1914 uu buug u noqdo buuggaasoo sameyntiisa loo isticmaalay teknolojiyadii ugu dambeysay buuggaas wuxuu ka kooban yahay informationka shakhsiga buugga leh information walba oo maskaxdaada kugu soo dhacdo sidoo kale baasaboorku waa qalabka ugu cadcad ee loo isticmaalo midabka soocid awgeed oo imka dir shariga caalamka halku dhigiyo in ibni aadanka meel walba ha joogay meel walba ku sugnaadee oo xuquuq سيما محقوق اسكو ميد اي ليهين باسبورك حقاسي waa iska indha tiray